بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن شاء الله waxaan kala aan jecel lahay kulankan inaan walaalaha iyo ahbaabta inaan ku baraarujiyo muslimiinta aadna waa looga hadlaa soomka iyo shuruudiisa iyo aad looga hadlaa. anaga ma jecli inaan ku dheeraado laakiin in la isxasuusiyo unbaa ugu muhiimsan taacadeed iyo taqwada iyo majaalaadkeeda iyo mar kalan insha Allah ka hadli doonaa oo mar kastaba majaalkiisa ayuu yeelanayaa. laakiin soomka kan shuruuduu leeyahay maadaama anaga mujtamac muslima nahay haddana Soomaali madhabka Soomaaligana uu Shaaficiyada uu yahay waxa weeye cala aqal asaaska inuu qofku u ogaado. waa dhici kartaa meelaha qaarkood oo mashaakil oo hadda waqtiga kan imaanaya oo su'aalo xagga siyaamka ah in madhabka Shaaficigana qowl uu ka leeyahay, majaamicda fiqigana ay rajaxaan qowl kale ama culimada kalena ay rajaxaan qowl kale ay rajaxaan. laakiin arrimahan ka hadlayno waa arrimaha inta badan ay culimada isku waafaqsan yihiin oo ah marka kulankan waxaan kaga hadlaynaa soon yaa soomi kara oo shuruudda siyaamka oo qofka uu ku waajibo shuruudeedii maxay tahay. shuruudan waxaa ka kow ah al-islaam. qofku waa inuu muslim yahay. qofaan muslim aanan ahayn marnaba kuma waajibto oo waxa weeye shahaadadii iyo islaamkii iyo diintii inuu soo galo ayaa asaas ka ah. markuu soo islaamo wixii soona laga soo tagay isaga lagama rabo sida madhabka uu qababa iyo culimada ay qabaan oo ah inaanan wixii uu ka soo tagay al-islaamu yajibu maa qablahu, wixii dambi ahaana wuu dhaafaa, wixii hore looga soo tagayna lagama rabo. inkastoo culimada ay qaar ka hadlaan oo yiraahdaan ma dadka kufaarta ma mukhaatabiin baa bifuruuci shariicada furuucdeeda ma lagula hadlayaa oo iyagu hadalkan khitaabkan ilaahay loo jeedinayo iyaguna ma qabanaya oo soonkii iyo salaada ma laga rabaa oo soonkii iyo salaada iyo shahaadateynka intaba waa lagu ciqaabaya masaasa mise gaalnimada ka weyn. laakiin si kastaba ha ahaatee qofku hadduu soo islaamo, haddaan ka tagno muranka jadalkaas oo bacd alculamaa al-usuuliyiin ay aad uga hadlaan, haddaan ka tagno waxaa la yidhaahdaa qofka wixii islaamka ka horeeyay yani waa laga dhaafay. sababtoo quraanka baad ka fahmaysaa qul lilladheena kafaruu in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. wixii hore u dhacay waa laga dhaafaya. haddii qof kaafira ama maalan qaarkood u yiraahdaan waa soomaynaa waxba laga aqbali maayo. waa jira hadda dad dowladaha galbeedka oo kale markay arkaan mujtamac ay la nool yihiin ama muslimiina waa idinla soomaynaa inay yiraahdaan waxba haddii xataa maanta dhan ay soomaan wax laga aqbalayo male. midda labaad rukniga yani shardiga labaad waxaa weeye albuluuq. waa qofku inuu qaangaar yahay. marka sida axkaamta sharciga kale oo ay sida salaada iyo kulliba qaangaarku ay waajibka u tahay sidaasoo kale ayayna soomku ay u tahay. sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey rufica alqalamu can halaatha. saddex ilaahay qalimka waa ka qaaday can isabiyi xataa yabluq, ilmihii yaryaraa ilaa uu ka qaangaaro, wa can innaa'imi xataa yastayqid, qofka hurdana ilaa uu ka soo tooso, wa can ilmajnuuni xataa yafiiq, qofkii majnuunka ahaana ama waalaa ilaa uu ka miyirsado oo miyirkiisa uu ka helo. marka macnaha waa laga kor qaadaa waxay ka dhigan tahay takaaliif laguma kor yeelo, yani laguma kalifayo soon iyo cibaado kaleba laguma kalifayo. laakiin ilmaha markay dhalinyaro yar yihiin waa la amraa weliba markuu 7 sano uu soo gaaro sida salaada oo kale hadduu soomka uu karo si uu awood uu ugu yeesho sida iyadoo laga qiyaas qaadanayo salaada. marka haddii uu ka tagana wax qado ah ama inuu soo gudo oo laga rabo ma aha waxa kolka uu yaraa. marka laana ma aha zamanu takliif ma aha. qodobka saddexaad ama waxaan oran karnaa shardiga saddexaad waxaa weeye caqliga.
marka haddii caqli la waayo takaaliif ma jirto waa qofka hadduu waalan yahay siduu xadiidka kale uu tilmaamayay وعن المجنون حتى يفيق وأهيد وأساسه كلوي أو قفكي أوصل مرنا بعقله وأساس أيوه لكن قفكي هدي وعشي هدنا دب أصول نقضي أو جنون كسر نقضي هبطوا أما هي راضو يعني ما لازم يسوي ومسه جدايو معناها هدي مثلا والسنة والله أما دور بلود والله وبشر رمضان يسوق شيء مسه جدايو لكن قفك مغمى عليه هدويه هي أما لمير ضبولي أما صوحي صوحدين يكون عضي مركا سجى صوم واجب كماها أنت ومقيه مير كيس ومقيه هي كمان أنصحايو لكن هدي وصون نقضه oo miirkiis u soo noqdo waa inuu gudaa oo gub u gudaa marka waa meeshan xukunka ay ku kala duwanaanayaan qofka waalan iyo laakiin qofkan waa uu soo noqonaya marka wuxuu la mid noqonayaa igmaagu sidiisuba ama miir daboolku waa jiro wuxuu soo galayaa faman kaana minkum mariidan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin ukhra ayuu soo galayaa oo marka ma aha wax marka oo cusub ma aha haddii uu xataa uu leeyri uu soo kaco oo marka maalinta qayb dhexda bartamaheedii ay tahay waa imsaak buu sameynaa iyadoo xurmada maalinta uu ilaalinayo marka inaha ayaa caqliga xaggiisa u muhiimsan midda afraad ee shardiga waxaa weeye annaqaa'u min alxayd aw annifaas in uu yacni qofka hadday haweenay ay tahay ay ka daahir tahay xaydka iyo nifaaska labadaba ay yani ay ka tahay yani caadadii shahriga ahaa iyo midii dhalmada ahaydba iyaduba ay yani ay ka daahir tahay taana aad baa loo yaqaanaa marka waxaa weeye waajib waxaa weeye waqtigaas ramadaanka uu ku soo toosay ma soomayso laakiin kolka ay dhammaato oo yani ayay gudaysaa waxa weeye way soo gudaysaa saa sida xadiiska Caaisha laga wariyay oo ay leedahay waxay tiri xaydka markay ka wareysay kunna nu'maru biqadaa'i as-sawm waxana la amri jiray soonka inaan soo gudno walaa nu'maru biqadaa'i as-salaa salaada inaan soo gudnana lama amri jirin marka salaada lama soo gudaayo soonka waa la soo gudaaya marka xaydka iyo sidaas ayaana madhabka shaafiiciyadana ay tahay iyo jamiic almadaahibtana way tahay marka waxa weeye inaan waxba la soo gudaynin shardiga shanaad waxaa weeye alqudratu cala asiyaam in awood qofka uu u leeyahay inuu soomo hadduusan awood u lahayn sidii qof weyn ah waayeel ah oo aanan karin awoodna aanan u lahayn ama ay dhib weyn ay ku tahay oo noloshiisa ama caafimaadkiisa ay dhib u geysanayso ama cudur oo aan rajo laga lahayn inuu caafimaado cudurrada qaarkood oo yani rajo laga lahayn inuu caafimaado oo la sugaynin sida dadka hadda sokorta qaba oo waliba sokorta nooceeda dhibka badan ama cirbadaha la qaato ama keenaysa uusan marnaba xamili karin cuntada noocaas oo kale haddii jiro soonku macna ma ku waajibayo waxa ku waajibaya fidya ku waajibaysa وعلى الذين يطيقونه فدية طعام سيد القرآن طعام مسكين إن لقوديه أيام مركز كواجباي مركا شيخ الكبير سيد ابن عباس يطعم عن كل يوم مسكينا مالك استبقف مسكينة أيو وحكا سينايا أو مركا كا إسجا ويعني مركا حوي قف كاس وقف كأنا كرين شردقاس وشردقاس mud oo qamx ah u dhiibaya taas marka waa xagga kafaaradii ya lagaga hadlaa laakiin anaga shuruudda ayaan ku jirnaa shuruuddaas marka waa shuruuddii ay ku waajibaysay ama shuruudu sixa haddaan kelimad ka niraahno hadal dheer uma baahna maxay ku ansaxaysaa shuruudda waxay ku ansaxaysaa islaamnimo shuruuddaas waa shuruuddii ay ku waajibaysay waxayna ku ansaxaysaa oo kaaga ansaxaysaa islaamnimo waa midda labaad labo التمييز qof allaale qofkii yani hadduu uu ilmo yahay laakiin ilmo kuray ah oo aanan qaan gaarin waa ka ansaxaysaa inkastoo aysan waajib aysan ku ahayn marka islaamnimo iyo tamyiiska waa labada
midda kale laakiin qofka majnuunka waxba kama ansaxo يعني iyo caruurta kale oo ilmaha yaryar oo halka sano labada sano iyo waxa ah waxba kama ansaxo midda saddexaad waxa weeye alkhuluw min alacdaar almaanica min asawm waxyaalaha ansaxa shuruudu sixa waxaa ka mid ah waxyaalaha cudurrada kaa mancinaya soonka in hore oon usoo sheegnay xaydka iyo nifaaska iyo walow qayb ka mid a maalinkii haddii ay tahay waxa weeye oo saacad ka mid ah haddii aad xaaladda ku sugan tahay ma ansaxayso marka shuruudu sixada ayaa ah ugu dambayn waxaa weeye in ay soonku uu ku dhacaa waqtu lqaabili lisawm waqtiga la soomaayo oo saxda ah waa shahru ramadaan waa shahrigaas oo faman shahida minkum ash-shahra falyasum bishaas in dhexdeeda ay dhacdo iyaa la rabaa marka waxaa la diidayaa ayaamo aanan ahayn inaad soonto ayaamo waxaa jira waxayna arrintaa ku sugnaataa ru'yay ku sugnaataa in la arko bisha haddii la arko oo 29 bishii shacbaan ay noqoto la arko ama la dhammaystiro oo bishii shacbaan haddii la waayo oo ama yani daruur ay qariso waxaa la dhammaystirayaa bishii shacbaan 30 waa lagu soomayaa marka intaa waa shuruudda ay ku waajibayso soonka iyo shuruudda ay ku ansixayso hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh